dabkan ayaa qabsaday guri ku yaal magaalada Burco kaasi oo khasaare gaarsiiyay agabkii dhex yaalay guriga iyo sidoo kale ilmo yar halkaasi ku sugnaa isla markii dabkaasi kacay waxaa goobta soo gaaray ciidamada dabdamiska ee gobolka Togdheer waxaana halkaasi ku damiyeen dabkii qabsaday guriga iyagoo badbaadiyay ilmo yar oo ku sugnaa guriga waxaan wax ka weydiinay taliyaha ciidanka dabdamiska ee gobolka Togdheer Cabdicasiis Maxamed Cabdilaahi khasaaraha u geysay dabkani iyo sida ay ula tacaaleen dabkaasi khasaaraha guriga ka dhacay khasaaro badan oo soo weeray kuma dhicin waxa gubtay qol kamida gurigan isla markiina la soo sheegayba ciidanka dabdamiska qaranku si degdeg ah ayuu yimaadeen goobta waana ka soo gaareen isagoo isla qolkii dabka bilaabmay ku kooban waxa kale xusud mudan iyaduna qolkaas waxa dhex jiifay ilmihii yaraa isla markii ciidanka dabdamiska ka soo gaareen waana ka soo badbaadiyeen dabkiina halkaas ayaan ku koobnay khasaarihiisa ilmihii yaraa waxaan geynay dhakhtarka weyn waana ku wareejinay qaybta emergency-ga waana la daweynayaa ilmaha yaraan labada lugood ee dambe isagoo dabka ka soo gaadhay ayay ciidanka dabdamiska qaranku ka soo gaadheen kana soo badbaadiyey wallaahi kulley baadhistaa socota oo baadhista ka hor dhici mayno waxaan ku wareejinay ciidankii ammaanka ee saldhigga maxamed cali iyagaana baadhitaanka rasmiga ee kama dambaysta soo saari doona dhanka kalena waxaa halkaasi ka hadlay mid ka mid ah dadkii guriga dabku ka kacay ku sugnaa ilmaha yarna adigu dee uu gubtay laakiin maasha Allah adigu wax weyn oo dhibaato ma aha ciidamada dabdamiska wallahi aad u mahadsan way soo dheereeyeen waqtigii loo baahnaa ma yimaadeen lamana garanayo sababta kicisay dabkani balse ciidamada dabdamiska ayaa si weyn ula tacaalaya ka hortagidda khasaaraha dabka Shucayb Xasan Ismaan Shucayb Kingish Kalsan TV magaalada Burco.